halkani waa cusbitaal weyn oo laga bilaabay santarka qararo ee degmada Danood ee gobolka Doolo iyadoo hore deegaanka qararo uu lahaa dhismo cusbitaal 4 qol ah balse haatan waxa lagu daray 12 qol waxa halkan ka hadlay qaar ka mid ah uqaasha iyo waxgaradka santarka qararo ee dowlad deegaanka Somali State waxay baaq u direen xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ee hogaamiyo madaxweyne Mustafa Cagjar inay ka soo qayb qaataan dhismaha cusbitaalkan aad u weyn iyo qalba joogta deegaanka cid kasta baaq baan u jeedinaynaa inay dhakhtarka nagala qayb galaan oo waxay ku darsan karaan ku darsadaan oo haday dhinaca loo eegana waa sadaqa jaariya oo Ilaahay agtiisa diwaanin bangiga Ilaahay wax dhigtay hadii dhinaca kale loo eegana waa mar dalkii galay marka waxaanu baaqaan jeedinaynaa waxa weeye dhakhtarka cid kasta wax ku darsan kartaa inay wax ku darsato haday qurba joog tahay iyo haday dhulka rag dadka jooga tahay iyo gabarba iyo haday dawladda tahay waxaan soo jeedinaynaa in dhakhtarka wixii lagu darsan karo lagu darsado gaar ahaan dawladda waxaan ku celinaynaa inta aad aragtaan waa idinka oran jiray wax qabsadaan wax idin ku dareen waa aragtaan waxa aan qabanay horteedina halkaas ay dhaafi weeyay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba ka codsanaynaa inaad inta hadhay noo dhameystirtaan haddaad tihiin xukuumadda wasaaradda caafimaadka ilaa xukuumadda madaxweyne Mustafa ayaana ka qabtaan wixii ay kari karayaan nagu soo taakuleeyaan garabka iyaga inay istaagaan cid kasta oo sama jecel ah oo sama fal jecel ama jecel maxaan ku horumar jecel hadii ay tahay hay'ad hadii ay tahay dawlad hadii ay tahay shakhsi hadii ay tahay cid kasta waxa weeyaan dhakhtarkaasi waa dhakhtar Soomaaliyeed ama cid kasta oo xanuunsanaysa wala dhigi loo ay doono waxaan jecelahay cid kasta oo codka iyaga maqasha inay waxay noo geysan karayso gacan noo geystaan noona qabtaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسرية أو شو يسوي القانتي دكتور هير سنتر يوم أول بدي مقالة يرفع عن قالب علينا وحيد ستي أو موضوع أيام كتير أو تاين هي وحامسلين كيو سلبين تسمعها جعل يودت كتير كبر شبير بدها تشوفين بدل كات شوفيني أنا أقعد سنة هي دولة لفتي دولة دقيقة كوزارة عافماتك يوم ما ملك دقمة هذا هالك الحكومة دمانتود magacaygu waa hodan Salebaan Diiriye maxay toy shirkaygan wuxuu daaran yahay lama maxay ta fariin aan u dirayo dawladda deegaanka Soomaalida iyo cid kasta oo qosayso oo ku saabsan dhakhtarka hadda laga seesay ama laga kiciyay santarka qararo oo saad u ogtiin horay ay waxyaalo fara badan ay bulshada ku dhaqan santarka qariyo qurba joogto iskaashanaya ay uga soo qabteen waxyaalo badan marka waxaan rabnaa wixii inta noo hadhay intaan qabsanay inta noo hadhay inay dawladda iyo shacabka ay qosayso ay noo dhameystiraan maxay toy maadaama ay cilad badan jirto oo xagga caafimaadka ah oo aan hadii gabadh umusho qof xanuusto ay noqonayso in meel kale loola cararo marka intaasan ku soo koobaya hadalkayga salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa inaan halkan uga diro fariin qurba joogta oo horeyna waxyaalo fara badan nooga qabtay inay noo dhameystiraan intii ka qayb qaadatay intaan ka qayb qaadanba ay noo dhameystiraan intan oo iyaga dawladuna isla kaashtaan aadna ugu mahadcelinaya qurba joogta wax fara badan oo horey noo qabatay baa uga mahadcelinaya waxa kamid ah waxay noo qabatay qurba joogtu dugsi sare high school iyo maxay toy maxad waxa kamid ah inay waxyaalo fara badan oo nolosheeda wax ka bedeleen iyo horumarkeeda oo ay dhici jirtay hadda ka hor inaan ilmaha iyagu markuu maxay ay dhameeyo inaan meel kale u dir jirnay ama halka mustaqbalkiisa ku waay jiray hadda laakiin asoo gurigooda canjeelada ka cunayo maxay tay buu dugsiga saranaada insha Allah in jaamacadda noo raaciyaan waan rajaynaa صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد waxaan leeyahay عبد الناصر فيصل محمد waxaan ka mid ahaa culimada santarka qararo aniga ku hadlaya afka culimada santarka qararo ama dhalinyarada santarka qararo deegaanka Soomaalida hadii aan bariga doolanahay ama bariga Danood aad iyo aad baan waxaan ugu baahanahay waxtarka dawladda annaga oo markasta isxilqaan wax ku dhisana waxaan ka codsanaynaa dawladda inay noo dhameystiraan waxa aanu shacab ahaan ku dhisanay ama aanu ku bilaabnay ka mid yihiin hel santarka qararo ka socda dugsiga sare ee ka socda Heegaale in noo dhameystira wixii bulshada ay la timaado oo wax qabsan wax kugu dareeba wax lagu shaqeyn jiray arrinka isaga noo dhameystira wixii aanu qabsanay
waxaan kale oo qurba joogta leeyahay awal hore bulshaduna waxba u qaban jirteen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin haddaan nahay shacabkaad wax tarteen oo xaggii jooga wadankii jooga aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa waa idin hambalyeynaynaa waxaad qabateen ilaahayna waa idin ogyahay idinkana waa idin aragnaa waxqabadkiina waa mid muuqda ma mid qarsoon